Filimkan waxa uu ku saabsan yahay saddexdii fardooley ee geesiyada ahaa. Saddexdaasi waxay ahaayeen geesiyaal laga yaqaano magaalada ay ku noolaayeen. Aniga waxaan doonayaa markaan weynaado inaan noqdo fardooley. Anigaba sidoo kale waan doonayaa fardooley. Waa inaan noqdaa maalin maalmaha ka mid ah wax walba oo dhaco. Wiilkaygiiyow, waxaad u safartaa magaalada, waxaana laga doonayaa inaad ula dhaqanto dadka si wanaagsan, saaxiibnimadana qadari, dadkana garab istaag si ay adigana ku garab istaagaan. Warkaan ha iloobin. Ma iloobi doono aabe dardaarankaada. Fardooleydii ilaalin jirtay boqorka ayaa waxay weerar ku qaadeen saddexdii fardooley ee geesiyaasha ahaa. Tartankan ma aha mid cadaalad ah. Saddex ayaa waxay la dagaalamaysaa 5 fardooley. Weliba saddexdaasi mid ayaa dhaawac ah. Cadaalad ma aha. Haye waran Atos, waxaad u malaynaysaa inaad iska celin karto adigoo dhaawacan. Haye iska celi. Waxaa tahay mid doqon ah. Ma saas ayaad leedahay? Waxaan u malaynayaa jabkaadii carabka weli kaamuu jarin. Waa in carabka hadda kaa jaraa. Kuma tahay adiga doqonyahow? Waxaan ahay iska daa ee iska celi. Imaqal cunugeeda tuulada ka imaaday. Waxaad u malaynaysaa inaad iska celin karto. Waad halaagsamaysaa. Waxaad gashay dembigeedii ugu weynaa noloshaada. La soco. aad ayaad u mahadsan tahay. Waxaad tahay wiil geesi ah. Waxaan arkay inuu ninkan la dagaalamayo rag badan, weliba isagoo dhaawacan. Waan u dulqaadan waayey. Waxaa waajib igu ah inaan kuu mahadceliyo. Magacayga waa Tatiryan. Waxaan ka soo jeedaa tuulada Gaskino. Saddexda fardooley waxay kala yihiin Atos iyo Bordos iyo Aranis. Tatiryan riyadiisa waxay ahayd inuu ku biiro saddexdan fardooley. Waxa uu maqli jiray weligiis geesinimada saddexdan fardooley. Run ahaantii hadda waxa uu noqday mid ka mid ah boqorkii magaalada. Waxa uu maqlay inay ku guuleysteen tartankii. Waxa uuna ugu yeeray qasrigiisa si uu abaalmariyo.
saddexda fardooley iyo daatiriyaan. waxaad tihiin geesiyaal, waxaad soo hoydeen guul weyn, waxaadna tihiin ilaalada boqortooyada. waxaa laydinka rabaa shaqo walbo inaad u qabsataan si wanaagsan, waxaadna mudan tihiin abaalmarin. uma malaynaynin inuu boqorka waxaanoo maal ah na siin doono. waxa uuna siiyey billadaha geesnimada. saa darteed waa inaan u abaalgudnaa. intaa bese ma aha ee waxay noo noqon doontaa calaamad aan isku aqoonsanno saddexdeenna iyo daatiriyaan. haa, waa runta, waxay noqon doontaa calaamadda saaxiibnimada. maalmaha way socdeen. daatiriyaan iyo saddexdiisa saaxiib waxay ahaayeen kuwo wada shaqayn ay ka dhexayso. waxaa imaaday walaalka. maxaad naftaada halis u gelisay? boqorka waa uu ku xanaaqsan yahay. waxaan doonayaa inaan safro oo aan ku biiro ciidanka xuduudda joogo. walaalkiiyow, sidee ayaad ku soo gashay boqortooyada? boqorka waa kaa mamnuucay inaad soo gasho. waan soo dhuudhuuntay, madaxana mare ayaan soo saartay. hadiyaddan iga guddoon oo igu soo xasuuso mar walbo. waxaa laga yaabaa inaan dib isku arki weyno. macsalaama. boqoradda waxay soo gelisay qasriga walaalkeed. waa i khilaaftay amarka boqorka. weliba waxay siisay hadiyaddii Isbaaniya. waa inaan ku xujaynaa hadiyaddaas inay soo xirataa si aan iskugu dirno ayada iyo boqorka. la taliyaha boqorka aad ayuu u nabacaa boqoradda, maxaa yeelay waxay ahayd mid reer tuulo ah. hase yeeshee boqorka aad ayuu u jeclaa. lishilio, la taliyaha boqorka, waxa uu u maleegayaa khiyaano. mudane daatiriyaan. haa, maxaa jiro? hameen wanaagsan marun. wax yar sug. maxaa jiro? arrin muhiima ayaa jiro. muxuu yahay arrinkaasi? waa arrin ku saabsan boqoradda. maxaan u qaban karaa boqoradda? boqoradda waxay ku jirtaa baxar aad u weyn. boqoradda, maxaad u fikiraysaa boqoradda? waxaan ka fikirayaa wixii aan xiran lahaa xafladda. bal ka waran haddii aad xirato hadiyaddii Isbaaniya. hadiyaddaas miyaa xirtaa? haa, waa inaad xirataa. maxaa yeelay la taliyahayga lishilio ayaa igula taliyey inaad soo xirato. mar dhow kuguma arkin adigoo xiran. lishilio, la taliyaha boqorka, waxa uu isku dirayaa boqorka iyo boqoradda. maxaa yeelay wuxuu
cadow ku yahay boqoradda. waxaan kugu yidhi ma maqashay? haa mudane, waan maqlay. ballanteennu waa xafladda. doqonkii lishili ahaa waa uu ogaaday inaan hadiyaddii walaalkii siiyey, sidaa darteed ayuu iiga faa'iidaysanayaa. waa inaad soo ceshtaa hadiyaddaas wax walba i ahaataba.